haddaba soo duubay aragtida waxay leedahay mar walba xawaaraha uu kordho waxa yaraanaya time ka aad nolosha aad ku soconaysid aad u yaraanaya ilaa aad gaadhid speed of light halka ka geli doonto nolol la dhaho immortality la afka qalaad ama hadii af Soomaaliyeeno nolol ayna waqtigaaga aanu soconayn. haddaba su'aalan assalaamu calaykum asxaabta dhammaan aad baan idin salaamay. af Soomaali baan ku hadlayaa. asxaab badan ayaa iga soo codsatay in waxyaabaha YouTube-kan ku soo gudbiyo in qaybteeda af Soomaaliga aan u sameeyo. iyadoo taas aan ka jawaabayo ayaa YouTube-ka channel-kan labaad ayaan furay isagoo af Soomaali insha Allah ku baxi doono. kulli mawduucyadu same bay ahaan doonaan oo qaybta English-ka iyo qaybta af Soomaaliga kulli wax kala duwan doonaan waa luqadda weeye. dabadeed waan waxba hadalkayga ku dheereynin toos aan galno mawduucina. maanta waxaan ku hadli doonaa mid ka mid ah aragtiyooyinka la yaabka badan ee bini'aadamku uu soo saaray taasoo afka qalaad lagu dhaho time dilation ama haddii af Soomaaliyeeno jiitanka waqtiga ama waqtiga koofida. qarnigii 20aad saynisyahannka Einstein ayaa wuxuu soo saaray formula la dhaho E equal mc². formuladaas oo ka dambeysay aragtiyooyin fara badan inay ka daba dhalato sida aragtida magaciisa atomic bomb-ka iyo aragtida maanta aynu ku hadlaynaa la dhaho time dilation. haddaba Einstein wuxuu leeyahay mar walba shay ama walax ama bini'aadan ama wax walba ha noqday xawaarihiisa uu socdo ama speedkiisa uu aad u bato waxa yaraanaya time-ka amba waqtiga socdaalkiisa. tusaalahan oo kale anigoo ah liibaan haddii aan dhulka aan joogo iyo imka bini'aadanka kule technology deerba la gaadhay waxaa la soo saaray wax la dhaho rockets oo spaceyada lagu tagaa. marka dadka rocketska ka shaqeeya xawaare ay ku socdaan imka aniga tusaalahan oo kale dhulkan xawaare u socdaa baa la dhahaa yani dhulkaad ceedda wuxuu ku soo wareegaa 325 maalmood yani meeshu ka dhaqaaqay tagaya 325 maalmood balse qof rocketska waxyaabaan la dhaho ama dayax gacmeedka qofkii saaran wuxuu ku soo wareegaa intaa in ka yar macnaheedu speedku ku socdo iyo speedka anigan ku socday miya speedka dhulka ah waa ka badan yahay. taasina waxay u dhigantaa in time-kiisa yani time-ku ku soconayo runaantii aad u yaraanayso. marka Einstein isagoo ugu dalay inuu sharaxo aragtidan waxuu naga siiyay example-kan waxayna leedahay tusaalahan oo kale anigoo ah liibaan Mohamed waxaa leeyahay kaba soo qaad baa magacii waxa la dhaho twin ama mataanahaas la dhaho Mohamed kaba soo qaad baa waxaanu dhalanay isku mar oo aniga hadda 20 ma jira sana 20 ayaa u jiri doona. mataanahayga kaba soo qaad baa nin maskax badan buu ahaa wuxuu sameeyay wax la dhaho rocket anigoo films ka daawanaya rocket ayuu sameeyay isagoo magacii deerka guriga aan joogno deerkiisa rocket ku sameeyay kaba soo qaad baa anigoo film daawanaya ayuu yimi wuxuu yiri waxaan tagay liibaano space ka meelaha ayaan tagay oo cirka samadaas oo baxaya ayuu kaba soo qaad anna man joojin waxaan ku waayahay rocket-kii ayuu raacay space-kaas u tagay kaba soo qaad wuxuu ku socday speed la dhaho speed of light kaba soo qaad wuxuu ku socday waxaan la dhaho speed of light xawaaraha uu iftiinka ku socdo ayuu ku socday kaba soo qaad dib 30 sano markaan aniga aan jiray dhulka anigoo jooga ayaa mataanahayga ayaa soo noqday la yaabka badan aniga daadeed halkay ka tagtay konton iyo saaid isagoo hadeer waa weli shabaabnimo ayuu ku jira 20-yadii. marka maxaa keenay daadan farqiga maadaama aanu mataana aanu ahayn jawaabtu way iska caddahay waa rocket-ka uu saarnaa speedka uu socday ayaa keenay. arrinka la yaab kale waxa weeye Einstein waqtigiisii aragtidan wuxuu ku cadeeyay isagoo isticmaalaya kaliya tabaashir iyo sabuurad balse culimadii ka dambeysay isaga iyagoo isticmaalaya saacad balse ma saacadahan caadiga waa saacadda afka qalaad lagu dhaho atomic clock waa saacad second iska daayay second waxyaabaha ka yar af Soomaaliga in lagu dhaho jajab jeclahay ayay xisaabisaa. scientists waxay soo qaadeen 2 saacadood oo kamid ah noocan atomic clock mid waxay saareen diyaarad midna waxay dhigeen airport-ka. diyaaraddu safar ayay gashay muddo saacado 8 saacadood jeclay inay ahayd markay diyaaradda ay soo laabatay culimadu waxay la yaabeen farqigii u dhaxeeyay 2 saacadood balse waxaad ogaataa 2 saac isku mar ayaa la daaray markii diyaaraddu ay ka sii kacisay airport-ka isku waqti ay sheegisay balse markay soo laabatay farqi aad u yar ay ku kala duwanayeen farqigaas oo lagu tilmaamay 0.007 adiga waxaan la qiyaasi karin way maadaama speedku ku socday diyaaradda marka loo barbardhigo speed of light-ka ay aad u yar tahay. haddaba soo duubay aragtida waxay leedahay mar walba xawaaraha uu kordho waxa yaraanaya time ka aad nolosha aad ku soconaysid aad u yaraanaya ilaa aad gaadhid speed of light halka ka geli doonto nolol la dhaho immortality la afka qalaad ama hadii af Soomaaliyeeno nolol ayna waqtigaaga aanu soconayn. haddaba su'aalan